abaaraha ka jira gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa waxa ay saameyn ballaaran ku yeesheen iibka xoolaha loo iibgeyn jiray magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Xuseen UK. abaarta soo laalaabatay ee ka jirta guud ahaan geeska Afrika ayaa saameyn ku yeelatay qiimaha looda waxaana hoos u dhac ballaaran oo dhanka qiimaha looda ah laga dareemayaa suuqa labaad ee ugu weyn gobolkan waqooyi bari Kenya oo ku yaala deegaanka Darfur ee koonfurta countiga Wajeer. qaar ka mid ah ganacsatada looda ayaa TV-ga caalamiga ee Somali News ugu waramay hoos u dhac ku yimid qiimaha looda. bismillaah magacaygu waxa la Cabdullaahi Soomaali Cabdi waxaan taagna suuqa Darfur mishtarka looda ka taanahay إلا مدة سنة يوحى سو حما ayaa jirta looda meesha aan gadno oon geeyno Gaarisa waxa laga yaabaa neefkii for example aan ka bixino 16,000 inaan soo siino 14,000 soo xumada sayidka jirta looda meel u dhoofinaan laanahay nimanka kale mukaambadana ay gadanayaan laftooda waxay leeyihiin anaga dhulka abaaraha ka dhaceen loodii waxa dhacay niyo abaara dhacay wadankii macnaha waa sida uu ogtahay ba roob ma la helin roobkii la sugayay ee dayreed lama aan helin si fiican dalka umadeen inta badan meelaha qaar ka muuqsideen loodii way guurtay waxay aaday xagaga iyo Kismaayo iyo ilaa waxay aaday Hosingo Kismaayo ilaa iyo xeebahaas ay gashay inkastoo loodii ay guurto wadamada Soomaaliya ay gashay oo lood ay nagu yartahay wax hadda gacantaanada ku jiraan beec kuma hayn gaalaantaasna waxay ka suurta gashay wadanka Kenya yaan lacag ba ka jirin marka hadii aad xog weydiisay beeca xoolaha waa sidaas isku soo wada duduub isbedelkan iyo hoos u dhacan ku yimid qiimaha looda ayaa waxa loo sababaynayaa abaaraha iyo roob yarida ka jirta gobolkan waqooyi bari Kenya xaalkeedana waa mid ku jirta gacanta Allah subhanahu wa ta'ala. Xuseen Cabdi Ibrahim UK Somali News TV gobolka waqooyi bari Kenya.